Maalin wiil yar ayaa aabihii weydiiyey waa maxay qiimaha noloshiisa. Beddelka jawaabta, aabihii ayaa ku yiri wiilkiisa, qaad dhagaxaan oo ku soo iibi suuqa. Hadduu qofku weydiiyo qiimaha, kor u taag labadaada farood, waxna ha ku oran. Wiilkii wuxuu tagay suuqa. Naag ayaa weydiisay, meeqaad iibinaysaa dhagaxaan? Waxaan rabaa inaan dhigto beertayda. Wiilkii waxba kuma oran, wuxuu kor u taagay labadiisa farood. Naagtii ayaa tiri, $2 waan qaadanayaa. Wiilkii wuxuu aaday gurigiisa. Aabihiisa ayuu u sheegay, naag ayaa doonaysa dhagaxaan inay ku iibsato $2. Aabihii kadib wuxuu ku yiri wiilkii, waxaan rabaa inaad dhagaxaan markaan geyso madxafka. Hadduu qof doonayo inuu iibsado, waxba eray ha ku dhahin, kaliya kor u taag labadaada farood. Wiilkii wuxuu tagay madxafka. Nin ayaa doonayay inuu iibsado dhagaxa. Wiilkii wax eray ah ma uusan ku dhihin, wuxuu kor u taagay labadiisa farood. Ninka ayaa yiri, $200 waan qaadanayaa. Wiilkii wuu la yaabay, wuxuuna u soo orday gurigiisa. Aabe, nin ayaa doonaya dhagaxa inuu ku iibsado $200. Aabihii kadib wuxuu ku yiri wiilkayga, meesha ugu dambeysa waxaan rabaa dhagaxan in aad geyso meelaha dhagaxaanta qaaliga lagu kaydiyo. Aana tusto milkiilaha, wax erayna ha ku dhihin. Hadduu ku weydiiyo qiimaha, kor u taag labadaada farood. Wiilkii wuxuu tagay meelaha dhagaxaanta qaaliga lagu kaydiyo, wuxuuna tusay dhagaxii milkiilaha. Halkee ka heshay dhagaxan? Waa mid dunida dhif iyo naadir ku ah dhagaxan. Waa inaan haystaa. Meeqaad iga siinaysaa? Wiilkii wuxuu kor u taagay labadiisa farood. Ninkii ayaa yiri, waan qaadanayaa $200,000. Wiilkii wax uu ku dhaho ayuu garan waayay. Wuxuu u soo orday guriga aabihii. Aabe, nin ayaa doonaya inuu dhagaxan ku iibsado $200,000. Aabihii kadib wuxuu ku yiri wiilkayga, ma garatay hadeertaan qiimaha noloshaada? Waxaad aragtaa inaysan muhiim ahayn halka aad ka timid, halka aad ku dhalatay, midibka maqaarkaaga iyo lacagta aad leedahay. Muhiimaddu waxay tahay halka aad u go'aamaysa noloshaada inaad dhigto iyo sida aad u doorato in aad noloshaada u qaadatid. Waxaa laga yaabaa in noloshaada oo dhan aad ku soo nooleed ama aad u fikiri jirtay in aad la qiimo tahay dhagaxa $2 joog. Waxaa laga yaabaa in aad noloshaada oo dhan aad ku soo nooleed in dadka kugu hareeraysan ay ku arki jireen qiimahaada inuu yahay oo kaliya $2. Laakiin qof walba waxaa gudihiisa ahaaday diamond. Waan dooran karnaa in aan dadka dhex galno si ay u arkaan qiimaheena iyo u arkaan diamondka gudaheena ahaaday. Waxaan dooran karnaa in aan nolosheena suuqa dhigno ama aan dhigno precious stone store. Taasi waxay samayn kartaa dhammaan isbeddelka noloshaada.